kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey hogaamiyaha koonfur galbeed Sheekh Aadan Madoobe oo amar ku bixiyay in la soo afjaro ciidamada daacadda u ah lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo xilli heega la geliyay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada Baydhabo dhinaca kale ciidamo cusub oo ku biiray safka Cabdicasiis lafta gareen kuwaasoo la sheegay in ay ka goosteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xaalad kacsanaan oo ka taagan duleedka magaalada Baydhabo iyo xogo xasaasi ah ayaanu idiin soo gudbin doonaa daawadayaal inta warbixinteena aynu ku guda jirno balse marka koowaad soo dhowow muuqaalka laygare sidoo kalena sii shargaree si dad badan xogteena ay u gaadho aynu ku bilownay hogaamiyaha dhawaan la doortay ee koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa lagu soo waramayaa in uu amar ku siiyay saraakiisha ciidanka xoogga dalka in ay si degdeg ah kusoo afjaraan ciidamada taabacsan lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo amarkan ka soo baxay Aadan Madoobe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii la soo dhaafay ciidamo aad u fara badan ay ka goosteen ciidanka xoogga dalka kuwaasoo lagu soo waramayo in ay ku biireen ciidamada daacadda u ah hogaamiyihii koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana haatan markaasi lagu soo waramayaa in xiisad kacsanaan ay ka taagan tahay duleedka magaalada Baydhabo taasoo ku aadan amarka uu bixiyay Aadan Madoobe iyo sidoo kale Laftagareen oo muddooyinkii u dambeeyay waday abaabul xoogan oo uu ku doonayo in uu dib markaasi ugu qabsado gacan ku haynta magaalada Baydhabo xaaladda magaalada ayaa kacsan dadweynaha ayaa haatan bilaabay in ay ka barakacaan xaafadaha qaar iyagoo ka cabsi qabo in magaalada laysla soo galo wararka haatan naga soo gaaraya duleedka Baydhabo ayaa tilmaamaya in ciidamadii kasoo goostay la sheegay in dhinaca dowladda federaalk Soomaaliya ay markaasi ka goosteen kula biireen ciidanka lafta gareen in munaasabad soo dhaweyn loo qabtay xilli halkaasi ay kusoo bandhigeen dhammaan hubkii ay wateen isla markaana ay sheegeen in ay markan diyaar u yihiin in ay kasoo horjeestaan qorshaha Aadan Madoobe iyo sidoo kalena in ay taageeraan halganka la sheegay in dib markaasi loogu xoreynayo deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya Axmed Toronto ayaanu qadka taleefanka ku wareysanay waxa uuna markaasi warbixin naga siiyay xaaladda magaalada Baydhabo haatan ay ku sugan tahay iyo ciidamadan ku biiray lafta gareen iyo amarka Aadan Madoobe uu bixiyayba waa mahadsan tahay waa ku dhowahay durdurka wararka runtii ciidamadii ugu badnaa ayaa ku biiray ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ciidamadaasi oo ka mid ah ciidamadii koonfur galbeed Soomaaliya khaasatan waxaa ciidankaasi hogaaminaya gudoomiyaha deegaanka Misigaale nin lagu magacaabo Maxamed Isaaq Baraar iyo ciidamo uu hogaaminayo ayaa ku biiray furimaha dagaalka ee dib u xoreynta ciidanka koonfur galbeed Soomaaliya khaasatan ciidanka taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ciidamadu waxaad moodaa maalmahan inay yihiin istaba joog oo maalin walba ay ciidamo iyo mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin intaba ay tagayaan dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ninkii Aadan Madoobe ahaa arrintaasi khalkhal iyo cabsi badan ayay ku abuurtay wuxuuna hadda ku jiraa diyaar garow xoogan iyo sidii uu isaga soo afjari lahaa arrintan hub urursigan iyo ciidamadan faraha badan ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen garabkiisa aadaya waa tahay maadaama aad sheegtay Aadan Madoobe in uu amray in ciidamadan la soo afjaro maxaa tallaabo ah oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee haatan Aadan Madoobe ku ilaalinaya magaalada Baydhabo Aadan Madoobe waxa uu shir la galay oo uu kulan xasaasi uu la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Baydhabo waxa uu yiri sida ugu dhaqsaha badan waa inaad iga soo afjartaan ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen maadaama ay laba arrimood ay xilligan ku soo aadeen waa midda koowaade in wada hadal dowladda federaalka Soomaaliya ay la furtay iyo ergooyin loo diray garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen khaasatan ninka lagu magacaabo taliye shub oo ah sodoga Laftagareen sidoo kale halkaa cabsi ayuu ka qabaa sidoo kale inuu arko in arrintu ay xiisad kasta xaalad kasta mar kasta ay isbedeli karto oo ay wax dhici karaan yacni maxaa dhici kara in la afgembin karo oo dagaal uu dhici karo waa tahay saacadii lasoo dhaafay ciidamo aad u fara badan waxay u goosteen dhinaca
cabdicasiis lafta gareen ciidamada haatan taageersan ee duleedka baydhabo ku sugan waxaa hadda muuqato in lafta gareen uu helayo ciidamo aad u fara badan oo isaga kala imaanaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya qaybihii hadda ugu dambeeyay dhinaca baydhabo ay ka yimaadeen lafta gareen maxaa hadda qorshe ah oo uu damacsan yahay maxaase tallaabo ah oo uu qaadi doonaa leedahay ciidanka cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo weliba qorshahoodu waxa uu yahay keliya waxa ay tahay hal ujeedo bas ay leeyihiin ujeedadoodu waa sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen xukunkii koonfur galbeed Soomaaliya ee gacantooda ka baxay mar labaadna oo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu hoggaanka u qabto qorshaha keliya ee ciidanka cabdicasiis lafta gareen iyo reer koonfur galbeed ay leeyihiin waa midaas midda labaad ee jirta waxay tahay in ay tala iyo tusaale kasta ay ku bixinayaan iyo awoodooda inay isugu geynayaan sidii ay meesha uga saari lahaayeen ciidamadan hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay keentay ee meesha jooga ee culayska ku haya dadka reer koonfur galbeed ee aadan madoobe iyo ragga la midka ah taageeraya waan gartay waxaad ka dhawaajisay aadan madoobe in cabsi ay soo wajahday sidoo kalena ay jiraan wada hadallo haatan ay diyaarinayaan isla markaana ay rajeynayaan fila Soomaaliya iyo lafta gareen wada hadalladaasi xaggee ka dhici karaan maxaase faahfaahina oo naga sii kartaa xogtaas sida aan la soconno madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddaxireedkiisu dhammaaday maalmihii ugu dambeeyay wuxuu ku sugnaa gudaha dalka Kenya wuxuuna kulamo la qaadanayay ganacsato iyo dad Soomaaliyeed oo Kenya degan iyo kuwa siyaasiyiin waxaa la sheegayaa in wafdi uu u diray magaalada Nairobi si wada hadal uu ula furo lafta gareen iyo kooxdiisa oo wuxuun ugu qanciyo oo aadan madoobe maadaama uu meesha joogo hadda hoggaanka uu qabtay uusan meesha ka bixin aadan madoobe taasi qudhiisa cabsi ayay ku abuurtay maadaama ninkii wada hadal kursiga isaga saaray uu wada hadal la galayay kooxdii isaga ka soo horjeeday wuxuu ka cabsanayaa in madaxiisa lagu gorgortamo oo uu isagu meesha ka baxo marka wuxuu doonayaa hadda in uu sida ugu dhaqsaha badan isaga soo afjaro ciidamadan oo uu culays badan uu saaro ciidanka lafta gareen taasina dee ma aqaan sida ay noqon doonto iyo sida uu ugu guuleysan karo waa gartay amarkan uu bixiyay aadan madoobe ee ah in la weeraro ciidamada daacadda u ah lafta gareen ee duleedka baydhabo haatan ku sugan xogtaasi ma jirtaa oo sax ma tahay haddiise ay sax tahay xogtaasi oo amarkaasi uu bixiyey dhinaca ciidamada lafta gareen maxaa hadda dhaqdhaqaaqa oo ay sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay dadkuse magaalada ma ka barakaceen oo cabsi ma jirtaa xaaladda magaaladu waa sidee hadda waxaa jirta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay wadaan dhaqdhaqaaq iyo u diyaargarow ku aadan sidii ay u weerari lahaayeen fariisimaha ciidamada cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu ku leeyahay duleedka magaalada baydhabo dhinaca cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo kooxdiisa iyaguna waxay isu diyaariyeen sidii ay weerarkaasi u fashilin lahaayeen ay uga hortegi lahaayeen dadka cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo dhankooda iyagoo mar horeba waxay soo saareen digniin ku socotay dadka deegaanka iyo hay-adaha inay ka digtoonaadaan xaaladda wax kastana ay dhici karaan iyagoo la socda tallaabooyinka iyagu qaadayaan iyo kuwa ka imaan kara dhinaca aadan madoobe labadaba marka dadka dhegtaa u wada taagan xaaladduna waxa ay ka jirtaa baydhabo xaalad aad u kacsan